أول إله بما أذكر تبارك وتعالى وإذن بهالعلنا يا بهذا صحافة وحنروى بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي يدي باش عالم كإتباع لو ذاقه إيرير أو قوان أو كساب سلمدي بلاد أو شنطة بلاد هيد وأفضل كل إيهستي حقيقيا حنروى أولا نقطة إلى هاد عليو لما شعب الصومالي المسؤولين تي صوماليين وكحماتي وحلي اللي ورد رقمي سيدي اللي وصلوا بيش سيدي ده سودني كود سنة كهرباء الماضي أنا وصف راحة ومجرد مقدشو قرنك هذا عدى سفر ترانسيت قواحة قواشد اللي قبتي دولة الفدرال كأه شعورتي أي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجوبلان دل يدبدبا يمسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سجارة أو مهد عليه مدحونها دولة بطلان ولكن سعيد عبد الله الدني يحلبان فقي ورنت قديد السجارة أو حظي أديت أو مهد عليه يعني أما المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحلي ورد أرمي أنت سكدب أنا وعفمة قبا الحمد لله أديت بعض وعفمة قبا وحلبات أما قبا وحنا كسونا هاي مجرد بلد حاوي قبل كبدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وقوبا وحاليه يسلي وحود عين والسيرة أرجع أما حقيقيا سيق أرفع بدل مدة شنت بالوضع هاي وحي عن صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دير يفرصدو فربدل لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي مسؤولين تبع التوا يباش عالمك فرال أرض فرحون حقيقيا أنا كون أكسنين دولة نبذة الصومالي نبذة انتوا أول أول رقمي وحندرمي أما أن لعضي قبل شديدي البركة مقالة مقدشة اللي قبتي إن سيكر دون الله حظي لقينا لقي قف دنبيلة ودنبي الله يستود الشعب اللي هبلو كان وحير نوع سكلته محارب أنا حسوسي شعب الصومالي قف كستوعد في مغلها ينتبع شخصيا عبد الرشيد هان وحنا مقدشة تجي قبل شديد الكهر بشيل الحال واتني تدمر دي أنا كنت تجي مقالة كسماء عاصمة مقالة جبلان وحاجرون كل شيء ويحلبانو يوسيرو دولة الفدرال الصومالية كمدة وحان دقي حرمتها لمسودة قرنك الصومالية وحان جو إلى بيش التضباط سيدين ديلي وحان لكم من مدحونها دولة الفدرال الصومالية مع عبد الله فرماجو مدى لو الجارة ولو مد وقت كمدة جانس أرض دار أنا أشبه اللي مدحونها وأن كودها اللي قد يتكو صلاة سنين انت بدن دور الشوال لحنوي إنك كقب صنطو جبلان iyo aragtiyo kala duwana oo dawladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isa hore u sheegay in mas'uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda saraakiishu u sameysay aan kuranay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganeen oo aan deganeen hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay'adda mas'uuliyadda waxaan ka soo tagay bishii toddobaad sidaan horeyba u yiri sideedeedii waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii sideedaad Sudan koodeed bishii toddobaad marka haaf kamid ah waxa soo disnay bishii toddobaad haaf kamid ah iyo bishii sideedaad oo Sudan koodeed ay ku ekeed mareysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqday mana ahayn markii hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dawladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwanay sidii wax u rabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii sideedaad oo Sudan koodeed la qabtay waxaan marka qof kasto bil aadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan xaqiijiyo shakhsiyan in dambiile ah ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dambi kale ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka kismaayo ka dhacay
sida u dhacay kuma aan qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ku xirnaayeen waxaan maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduuba guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin baan maqli jiray xilligii ba dhici jirtay saasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aan markii ay qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladdu ay sitigi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dawladdu aysan kontroolin ba usbuuciyagu guri la igeynayo leeyahay hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafada xamar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guri lagu hayo inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxa maxkamad la igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyo inaan dambi leeyahay bish sagaalaad 6deedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16deedii 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad gobolka Banaadir waxa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamijka sida ku saleysnaa inta badan oo la isoo jeediyay eedeyntaas horay la igu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka bay xireen bishii afraad soddonkeedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiyihii naftiisa u yaabo cid ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas ahaan oo madaxda dalka u sareyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamijkaas oo ahaa dulmi u ahaa maxkamaduna ay xirtan gal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir waa la diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xalin karo siyaasad baa lagu xalin karaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninkii sargaalka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta Soomaaliyeed ilaa aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxal dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo rag wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabadgelyada qaranka Fahad Yaasiin kullane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadina sabadan ay ku burburtay in baaqaaraad badan oo kamid ah ayo ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah General Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u wareejay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midna uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada Jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay Buulaxaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tariikhayka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiya hawareertay way aniga ma gabar hawareertay waayo mar raba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer idaacadda ay ka hadashayba marna axwaashiida kama soo warqabin markasto waxaan rabaa in aan telefoon loo soo diray ama loo yeero u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray in idaacadda ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysta midna hawareertay marka oo cudur daaraya dhimale biidin Ilaahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan ka soo gudbo waxaan aad uga xumahay waxa maanta ka jira gobolka qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka Buulaxaawo Doolow iyo Buulaxaawo iyo Luuq markii koonfurta Soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan maleynayaa Doolow ay ahayd degmada kaliya ah koonfurta Soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo Soomaaliyeed oo dawladda TFG ama dawladda kumeelgaarka Soomaaliyeed ka mid ah hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dawladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen Buulaxaawo bishii 3 shanteedii aan Buulaxaawo qabanay bacda shida oo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii 3 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib Garbaharey ayay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weerar badan iyo dagaalo badan oo hajuun ah oo cadawgu ku sameeyeen oo iska difaaceen waxa koonfurta Soomaaliya ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas'uulba si nabad loo mari karo waxa ka jiro Buulaxaawo Doolow iyo Luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu marayo jidkeeda intii ayadoo nabad ah maanta inay dawladdu nabadda ka qaado oo mas'uuliyiinta dawladda u sareeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dawladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadeeda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la eglagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiyan aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed loo wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneed oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddada yarkeeda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyay oo cadawga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada Luuq oo kale akaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeedii in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay rag ilaalinayay oo yaqaanay oo cadawga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray Doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay waxaa dhacday Buulaxaawo in shacabka Soomaaliyeed xarurtooda cashooyinka u karsanayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama reer Buulaxaawo amniga ay haysteen iyo Luuq iyo Doolowna oo dambeyn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas waxaan rabnaa shacabka iyaga tiro badan iyo dhib badan baan soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalayo uu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay kamid ah maqaayadii cuntada lagu karinayo intii la soo galay in la yiraahdo xashish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo seeka aan maanta haysanaa la isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qoriga intuu gafoor ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabka iyaga ku fiirsanin dhibaato wada xaawo لو كل كويتون كمان كان قبلين وحيد مجاله عن سنة شباب دفاعان مدح الشباب كلنا اسكت تبي وحن قاعد ماي وحن كنا شعب كي وكنا لهاي إن أوقات كيسكرين مركان حرين تسكبر كسبيني حروا إن الحقيقيو إن مرنا نقود القادمين وح كرعي سيستم كان وح إن قضية على قشة يسرها يومين دي اللي محب هذه شر الشباب عدو أحيان وشعب الصومالي إن كلا تعالنا عن سرني هذه عدو كدوان ولمد شعب الصومالي اللي جسوا دايروا دبعتنا يوم مسؤولين تؤهين مرة ما أقبلين إن دلتان كان يدور النوذ هذا يروح عن قصة لسنة إن لو عيار منهم ونحق الجر بقى إن أدبوا حنا روح معي إن دليل الصوماليين وعدو جودوا بنان كتاجية أو دلك أمن دلك جرت وعدو شباب يراقوا هجت إن ما أنت أيك دبل إسكوب الله يو أبي إحنا نروح معه وحكلون نصيب درعة مقالون شو يعني أنكو حرنا شنتي برودة أن أفضل كل جوه استعمال استنتباتك كده أو أن قفل جدلين أو بصورة الجدلين أو بمبا مالها الجطورة أو قرحة كده أو سيدي كي هذا إكس كنترول كده أو الشعب الصومالي أو فرب بدن يبال ضد أمد الصومالية دولة كلا أو نكالكالة أنت وهالقول هاي وحقيقة إن أمنية مجال مقدشو وزيرها ومدة الصوماليين أيوة فهم يسوي أكتها ومقدشو يأفقوا يصدق كيلومتر دولة الكنترول لا صدق كيلومتر أفقوا يسكده مقدشو جده دولة الكنترول لا هل جد أو كلا حرال أو قف مسؤول قف عنه وسمري كريم أفراد تكسر عن دبعت كلام والله يدقون النبض أهنا أمنية اللي قادوا برامج كان لسمين تاسنا وحرنا أمد الصوماليين يباشا عالم أنت بقى حيالها دعها يو ومسؤولين تدولة الصومالية وهذا ذلك الملاحظة كيف فكرها يعني وعرفنا 2020 إن جارنا قفنا جارك تدون وأنا ترين بارنا تاسنا نضل نقول سنين دولنا نروح يعني من أديات وما سنتين وعرف أمد الصومالية إن أحقيقي إن لو ذاك الدونه من بداية إلى النهاية أما تمام إلى بلو شنتي بلود وحلو يقول ربي أديات وما سنتين يقدر ده كل حنا